Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay isdhexgalka dhaqaale iyo ganacsiga ee gobolka Geeska Afrika. Shirkan oo ay ka qayb galeen wasiiro ka mid ah xukuumadda ayaa aad looga dooday sida Soomaaliya u diyaarin karto mashaariic dalka faa'iido u leh dalalka Geeska Afrika ay ka faa'iideysan karaan maadaama uu jiro dadaal xooggan oo la doonayo in dalalku ka wada faa'iideystaan isdhexgalka ganacsiga iyo dhaqaalaha. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan oo qayb ka ah wasiirada shirka ka qayb gashay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka iyo waxa uu ku qotomay. waxaan saad arkaysaan isugu nimaadkan waxaan shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan joogay wasiiro badan oo mawduuci laga hadlayo quseeyo wasiiradaas waxyaalaha ka wada hadlayaan waxay ahayd maadaama oo jiro fikir ah in wadamada Geeska Afrika ay wax isla qabsadaan dhaqaalahan fikirkaas marka hore xaggeena ka yimid madaxweynaha ka yimid oo ahaa in maadaama wadamada tan wax badan ka dhaxayaan in dhaqaalaha iyo ganacsiga si loo soo kaashanayo la xoojiyo waxay dhashay markaas in bal hoos loo daadajiyo wasaaradda khusaysiga wasiiradii wadan walba ay soo diyaariyaan soo jeediyaan mashaariic ay wadankaas ka faa'iideysan karo wadanka dariskiisa ku xiri karo sida wadooyin waaweyn oo la wadaagayo arrimaha marka arrimahaas aan rabnay intaan la tagin bisha dambe la soo iman bal in aan gudaheena tashanoon lahayn maxaan la sheegtayna waxaan u baahnaa inaan sameeyno wadooyinkee ama mashaariicdee waa uga faa'iideyn karnaa wadanka wadamada dariska wax kala qabsan kara marka arrimahaas aan saga nimi taasaan ka tashaneynay waxbaan isla meel dhignay wada hadalkiina waa socdaa marka anagoo la tashanay dhammaan dadka khusaysa wadanka jooga ee noqon lahayd federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda guud ahaan bal inaan wixii soo qorqorno wax soo diyaarino dabadeedna aan wada tashi kale isku soo noqon arrimahaasaan ka wada hadlaynay waxaan rajaynayaa haddii aan leedno marka noo dhamaato in wax fiican wadanku cuntama aan soo diyaarino haddii aan leedno waxaan saad arkaysaan isugu nimaadkan waxaan shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan joogay wasiiro badan oo mawduuci laga hadlayo quseeyo wasiiradaas waxyaalaha ka wada hadlayaan waxay ahayd maadaama oo jiro fikir ah in wadamada Geeska Afrika ay wax isla qabsadaan dhaqaalahan fikirkaas marka hore xaggeena ka yimid madaxweynaha ka yimid oo ahaa in maadaama wadamada tan wax badan ka dhaxayaan in dhaqaalaha iyo ganacsiga si loo soo kaashanayo la xoojiyo waxay dhashay markaas in bal hoos loo daadajiyo wasaaradda khusaysiga wasiiradii wadan walba ay soo diyaariyaan soo jeediyaan mashaariic ay wadankaas ka faa'iideysan karo wadanka dariskiisa ku xiri karo sida wadooyin waaweyn oo la wadaagayo arrimaha marka arrimahaas aan rabnay intaan la tagin bisha dambe la soo iman bal in aan gudaheena tashanoon lahayn maxaan la sheegtayna waxaan u baahnaa inaan sameeyno wadooyinkee ama mashaariicdee waa uga faa'iideyn karnaa wadanka wadamada dariska wax kala qabsan kara marka arrimahaas aan saga nimi taasaan ka tashaneynay waxbaan isla meel dhignay wada hadalkiina waa socdaa marka anagoo la tashanay dhammaan dadka khusaysa wadanka jooga ee noqon lahayd federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda guud ahaan bal inaan wixii soo qorqorno wax soo diyaarino dabadeedna aan wada tashi kale isku soo noqon arrimahaasaan ka wada hadlaynay waxaan rajaynayaa haddii aan leedno marka noo dhamaato in wax fiican wadanku cuntama aan soo diyaarino haddii aan leedno istalka ubadkaaga ishcala labiskooda waa dharka Amira Collection ilmihii loo gado dharka Amira Collection baa farxad ku ciidi karaya